Waa barnaamijkii laba magaalo weliba xalqadii labaad waxaana markaan ku martay caasimadda Turkiga ee Ankara iyo caasimadda Spain ee Madrid. Ankara waa caasimadda dalka Turkiga iyo magaalada labaad ee ugu weyn kadib Istanbul sida ku cad tirakoobkii 2014 waxaana dadka ku nool lagu sheegay tiradooda ilaa 5 milyan. Taariikh ahaan waxaa la dhihi jiray Angora ama Ankara waxayna dhacdaa qaybta Aasiya ee Turkiga iyo bartamaha mandiqad juqraafiyeedka Anatolia ama jasiirad-lamoodka Anatolia. 3 Abriil 1920 ayay Ankara noqotay xarunta dhaqdhaqaaqa waddaniga ama Turkish National Movement oo uu horkacayay aasaasaha Turkiga cusub ee Mustafa Kemal Pasha ama Kemal Atatürk. Sidoo kale Ankara waa halka lagu aasaasay baarlamaankii Turkiga waxayna si rasmi ah caasimad u noqotay markii la aasaasay dowladda Turkiga iyo 29 Oktoobar 1933 waxayna xilka caasimadnimo kala wareegtay magaalada soo jireenka ah ee Istanbul oo awoodo badan caasimad u soo noqotay. Waxayna ahayd dowladdii u dambeysay ee caasimad u noqotay dowladdii Cusmaaniyiinta. Ankara kadib markii ay noqotay caasimadda Turkiga waxay ku tallaabsatay horumar weyn. Maanta waa magaalada labaad ee ugu dhaqdhaqaaqa badan Turkiga. Kolkii ay hana qaadaysay Jamhuuriyadda Turkiga ee maanta jirta waxay Ankara ku tiirsaneyd xoolo dhaqashada iyo beeraha, laakiin waxaa kala bar oo dhulka Ankara inuu ku wanaagsan yahay beerashada oo dalagyo lagu beero. Sidoo kale waxaa magaaladan magaceeda la raaciyaa xayawaano badan sida mid ka mid ah noocyada bakaylaha ee ugu qadiimsan ee loo yaqaan Angora rabbit iyo sidoo kale bisada qadiimka ah ee loo yaqaan Turkish Angora. Sidoo kale waxaa jira nooc ka mid ah ariga oo loo tiiriyo magaaladan loona yaqaan Angora Gas. Maadaama ay ahayd mid beerashada ku wanaagsan waxaa laga helaa wax ka badan 3,000 oo geed, in ka badan 200 oo geed ayayna gaar la tahay. Qofkii booqda magaaladan waa inuu booqdaa matxafka lagu magacaabo Ethnography waa mid u gaara dhaqanka iyo hidaha dadka Turkida. Ankara waa magaalo taariikhi ah oo goobo badan oo dalxiisayaashu booqdaan leh sida qalcadda Ankara oo markii hore loo dhisay inay noqoto difaac ciidan, maanta waa mid goobaha ugu caansan ee dalxiisayaashu booqdaan. Antalya waa dariiq ama dhismo loogu talagalay aasaasaha Jamhuuriyadda Turkiga ama madaxweynihii ugu horreeyay ee Jamhuuriyadda Turkiga Kemal Atatürk. Waxaana laga helaa magaalada madxafyo badan waxayna Ankara caan ku tahay burjiga ama taawurka lagu magacaabo Atakule oo ay taawur isgaarsiin iyo indho-indheyn ah waxaana dhacaa bartamaha magaalada ama degmada toonka ee lagu magacaabo Chantaya. Waxaana dhismihiisa la bilaabay 1903 iyadoo la soo gabagabeeyay 1989. Waa magaalo dhinac badan isugu jirta oo qadiimi iyo casriba ah. Waxaana jirta degmo lagu magacaabo Baybasara taasoo ah mid taariikhi ah. Sidoo kale waxaa jira masjid lagu magacaabo Haj Bayram oo la dhisay qarnigii 15aad waana mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee dalxiisayaashu booqdaan. Waxaana ka jira magaaladan dabaaldegyo caalami ah sida dabaaldegga muusiga, midka qoobka ciyaarka iyo maharajaanka. Marka la isbarbar dhigo Ankara iyo Istanbul isusuma soo dhawo oo waxaa in badan horeysa magaalada Istanbul. Madrid waa caasimadda boqortooyada Spain waana magaalada ugu dadka badan dalka waxaana ku nool in ka badan 3 milyan, balse marka si guud loo eego waa 6 milyan. Waxaana dadka magaaladan loogu yeeraa Madrileños. Waa magaalada saddexaad ee ugu weyn Midowga Yurub haddii Ingiriisku si toos ah uga baxana waxay noqonaysaa magaalada labaad oo waxaa ka horeynaysa oo kaliya Paris. Waa halka ay ku shaqeyso xukuumadda Spain isla markaana ay degan yihiin jaamacadaha iyo xafiisyada ugu waaweyn. Madrid waa mid si weyn ugu tiirsan dhanka dalxiiska waxaana sanadkii booqdaan dad ka badan 6 milyan. Waxaana ku taalla xarunta dhexe ee ururka dalxiiska adduunka. Dadka ugu badan meelaha ay booqdaan waxaa ka mid ah matxafka Barado iyo matxafka
December Nimisa, waxaana magaaladan ka jira dabaaldeg caan ah oo lagu magacaabo Madbow. Madrid waa caasimadda Spain, laakiin taasi kama dhigna inay weligeed ahayd oo waxaa xilka caasimadnimo soo maray magaalada Toledo. Sababta Madrid caasimadda ka dhigtana waa halka ay dhacdo oo ah bartamaha Spain. Magaaladan waxay leedahay astaan u gaar ah, waana mid lagu naqshadeeyay xayawaanka dubka iyo geedka strawberry-ga, waxayna astaantan qeexaysaa koritaanka magaalada iyo muhiimadda geeduhu leeyihiin. Magaceeda asalkaana waxaa lagu sheegaa Australia, oo loola jeedo dhulkii dubka ama madax-kutiga, waxaana u dhoweyd inay ku noolaayeen tiro badan oo xayawaankan ah. Magaaladan waxaa laga helaa maqaayadda ugu qadiimsan caalamka, waana mid lagu magacaabo Sobrino, oo la furay 1725. Magaaladan waxaa ka bilaabay dhismaheeda dad Muslimiin ah, gaar ahaan dad ka soo jeeda dalka Morocco. Waxaa mar dhaxal qabsaday Alfonso afaraad, waxaana magaalada ka tarxiilay Muslimiin badan, isagoo masaajidda u beddelay kaniisado. Waxaana ilaa maanta ka muuqda Madrid raadkii iyo ilbaxnimadii Muslimiinta.